بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايدين سلامي ميل كستو جوجتين waxaa inoo wada rajeynaa cimri dheer ee caafimaad soo dhawaada waa mahadsantihiin dadka igu soo biiray ama subscribe-ka ii saaray maasha Allah aan idin leeyahay Allah idin xafido inta hore ila joogtayna soo dhawaada idin leeyahay idinkana waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta dadka oo maaragtay maskaxda laga haysto oo aan ra'yigooda qaadan karin ra'yi qof kale ku socdo maskaxda laga haysto markaan leeyahay ma awoodo inuu asiga maxaa la dhahayay oo isku aamiyo wuxuu jecel yahay mar walba qofka kale go'aankiisa sugaa taasna waa waxa laga fiican yahay nin inaagba way ka siman tahay dadka qaar sisay u badan yihiin xilliga maanta la joogo ma ogtahay adiga keliga markaad dhalanaysid inaad keligaa dhalatay ma ogtahay keligaa inaad dhimanaysid maxaa kugu kalifay maskax kale inaad ku socotid qofkaas ilaaha abuuray na ilaaha ku abuuray wuxuu ku dheeryahay ma jirto marka waxaa la rabaa maskaxda in laga fikiro in uu qof kale aadan macnaha ku haysan karin maskaxda kaa haysan karin ama ra'yi ahaan waxba ku siin karta talo waa la isku leeyahay waana waa la isku leeyahay laakiin qof dhan oo nolol samaystay ama guri ha yeesho ama mustaqbalka wax kale ha samaysto oo qof kale la ku xiran wuxuu sameeyay uu sameeyna ka cadil uu ka fariisa dil uu fariisana waa wax jiro waay taas waxaan aragnay waaye xitaa matalan hadda hooyo kale hadaan dhaho waxa laga yaabaa ayadoona balan loo sameeynin oo guriga iska joogto shaqada guriga iska haysato in qofkii soo waca uu dhaho waa ku baahanay si degdeg iigu imo waxaan haya shaqada hadhow u laabanaysaa imo wax jiro waay taas shaqadii ayada u taalay hawshii sugaysay howl gurina waa la dareemi karaa dhibka ay leedahay wala baxa meeshii la aada ilan qofkii ku baahan ama usoo shaqeynaysa ama meel uu ku kaxeysanayo wuxuu leeyahay meel hiblaa aadina soo bax waa iska raacday taasoo kale marka ma aha nolol waxaa fiican inaad go'aan yeelatid oo marka adiga qofka oo saasoo kale ku soo waco timeki ina fiirisid guriga ina fiirisid way qofkan hore kuma soo wicin kuma balansanin bari meel hiblaam ii raaci kartaa ma dhihin habeenimo kuma soo wicin jag adoo shaqadaada wadatid oo howl maalmeedka ku jira lagu soo wacay waa raacday dhibaato aad u weyn waa taas maskaxdiina ka shaqaysiye adiga i dhageysanaya ama i daawanaya hadii aad ku jirtid arrintaas haddaba ka bax oo maskaxdaada ka shaqaysiye maskaxdaada waxay kugu amarto oo adiga ku fiican sameey waayo wax badanaa kaa halaabayo noloshaada hore uma wadi kartid go'aan ma gaari kartid adigii madaxweynaha tahay hooyaa tahay waa lagu sugayaa adaa lagu daawanayaa hormuudkii guriga adi waaye adigiina haddaa saas u dhaqantid waxaa waaye dadka kaa dambeeyo adiga ku sugaya ama ku daawanayo aa khasaaro weyn galaayo marka waxaa idin dhihi lahaa hala isqabto waxyaabahaas aaday usoo bateen aad ayay usoo bateen marka qof walba wixii u qoran ma gafaayo qadar rabbina maxaa dhahay cid ka baaqanayso ma jirto qofka hadiiba ogtahay maskaxda inuu ka haysta ogtahay dee hadaa dhimatay qabri kulama galaayo qofkaas kulama dhimanayo soo ma wadi kaligaa dhimanaysa marka waxaa idin leeyahay hooyooyinka inaad taas ka taxadirtiin aad ayay u fiican tahay qaybta nimankana insha Allah waa kusoo xijin doonaa biidnillaah waa idin salaamaya dhammaantiin meel walba joogtiin caafimaad ayaa idin wada rajeynayaa insha Allah